السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليكم سود وهذا جنال كسربيان. maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado kabaab haddii ilaahay yidhaahdo. kabaab chicken kabaab waaye oo maxaa la dhahaa saas kuskuusan ah usoo jarjaray. waxaan ku darsanaa barbarooni shiidan, garam masala, filfil huruud iyo maraq digaag. waxalaala waxaa haysatid iyo wixii aad jeceshahay. basbaas haddii aad jeceshahayna waa ku darsan kartaa, haddii aad jeclayna waa kana saana aniga u sameynaa. basbaas ma ku darin. waxaan kusoo darsanaya haddii ilaahay yidhaahdo 2 qaado oo caanaha yoogadka baleenka ah ama ciirta ah ayaan kusoo darsanaya. waxaan kusoo darsanayaa oo kale waxaa waaye kamsar caleen iyo toon iyo sanjabiil iyo waxyaabo mataqaana aan isku shiitay u yaalay ayaan kusoo darsanaya haddii ilaahay yiraahdo. waa kaasaa maasha allah. kadib waxaan sameynaa si fiican ayaan isugu walaaqayaa. wax yar oo saliid hal qaado camal loo ku darsanaya. si fiican ayaa la rabaa alaabtan inta isku dhex gelisid meel ku dhigtid oo ay ku huurisid haddii ilaahay yiraahdo. cabaar ayaan qasayaa sidii mataqaanaa waxyaabihii aan ku daray een hal meel kaliya u fadhiisanin oo ay mataqaanaa wada dhex galaan. haddaa rabtid gloves gacmaha intaa gashatid ama gacmahaaga oo caadiga ayaa mataqaanaa chickenka aad si fiican ugu masaajeynaysaa oo aad mataqaanaa u dhex gelinaysaa gacantaada. haddaa rabtidna saas unbaa u walaaqaysaa. marka waxaa la dhigayaa waa la daboolayaa baca afka uga xiraa haddii ilaahay yiraahdo. waan daboolaya isla markiiba aan alaabta mariyay hore waa ka duban kartaa, laakiin ani ma rabo inaan hore ka dubo ama aan ka shiilo haddii ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa inaan mataqaanaaye aan ku dhigo alaabtii aan mariyay oo ay cabaar iigu huurto. markaa mataqaanaa kadib aan soo dubo haddii la helo aan soo kariyo insha allah. bacdan ayaan waxaan rabaa inaan afka uga xiro muddo 4 saacadood ah iyo ilaa iyo wixii ka badan. habeenkii intaa mari sidaas wixii samaysan kartaa. haddaa rabto finjeerka ayaa gashanaysaa ama talaagada haddii ilaahay yiraahdo baasaa u dhiganaysaa. aniga hadda waxaan dhigay 4 saacadood. after 4 saacadood kadib insha allah aan soo bixinayaa. waa kana 4 saacadood kadib ayaan u imaanay. waa soo noqonay. 4 saacadood ayuu hilibkan ama chickenkan uu igu qasnaa waxyaabaha aan mariyay. wakaasa maasha allah tabaarak allah. si fiican ayuu u dhex galay. si fiican ayuu mataqaanaa u dhex galay maasha allah. dhanaankii iyo wixii oo dhan way dhex galeen. xitaa markii chickenka mataqaanaa xoogaa aad dhigtid basaylkiisa wuxuu noqonayaa dhaqso. halkan waxaan ku haystaa basal iyo barbarooni guduudan. waa haddii aad u baahan tahay, haddii kale kaligiis ayaa sameyn kartaa. waxaan soo qaatay qoryo saa arkayseen. qoriga wuxuu leeyahay afka hore dhinac uu mataqaanaa fiiq kale, dhinacna xoogaa wuu ka kuusan yahay. marka dhinaca uu ka kuusan yahay qabsanaysaa, dhinaca mataqaanaa uu fiiqa ku leeyahay ayaad chickenka soo gelinaysaa. basal iyo barbarooni baan gelinayaa haddii aad u baahan tahay mataqaanaa aan rabaa inaan ku dubo. qayb baan mataqaanaa saas u sameynaya, qaybna ma ku daraay basasha oo mataqaanadaas basasha jecel dadna ma jecla soo ma. marka waxaa waaye taanaan dhahaa insha allah. waxalaala wixii mataqaanaa markaas oo carfisyaashiisa u dhamaystiraayeen. carfisyaal kaleeto oo badan ma u baahno. saas daraadeed in yaroo basal ah iyo hal xabo oo barbarooni ah baan mataqaanaa saas u dhexgelinaa haddii ilaahay yiraahdo. aad iyo aad u fududya kabaabkan, aadna buu u macaanyahay runtii maasha allah tabaaraka allah waaye. waa kaasaa iisina waaye, wax marmari ka tag waaye haddii ilaahay yiraahdo. marka waa kaas akhyaaray saasaan ku wadaaya insha allah. xabadaas waa taasaa basal iyo barbarooni bayaan dhexda u geliyay. xabada kaleetana waan ku basashaas iyo barbarooniga le aan ku wada haddii ilaahay yiraahdo. ayadana saas oo kaleeto sidii hore un baan ayadana mataqaanaa u sameynayaa. qorigaasan tartiibtaada gacantan ayuu kaa mudin. afka hore tawfiiq u leh waa loogu talagalay. dabkana ma gubaayo, waxna ma yeelayo. waa loogu talagalay in lagu dubo oo mataqaanaa markii aad qoriga soo birana wuu jiraa, isagoo qorigana wuu jiraa. marka waa kaasaa. basasha daarta intaa yaryaraan gelinaa, adiga waa ka badsan kartaa. waa haddii aad basasha mataqaanaa jeceshahay, kole way gubanaysaa oo si fiican bay ugu bislaanaysaa. marka waa kaasaa. labadaas ayaa waxaan ka dhigi doonaa inaa mataqaanaa aan basal dhex geliyo. kuwa kaleeto kaligiis isagoo ayaan sameynayaa. maxaa yeelay basasha dadaa raba dadna ma rabaan maaho. marka basal badan ma rabi. labadaas xabo basaan basasha geliyay. inta kaleeto waxaan ka dhigayaa caadi. ciyaalka kaleeto haddii ciyaar siinaysa chickenka way cunayaan, laakiin basal iyo waxaas ma rabaan maaho. marka waa kaasaa. saas ayaan ku wadaaya haddii ilaahay yiraahdo. chickenka waa kaasaa. jileeca wuu noqdaba markii cabaar uu ku jiray alaabtii iyo wixii marsanaa wuxuuba noqdaba jileec. waa soo dhameynayaa insha allah. akhyaarisana isku wadaaya insha allah. waa kaasaa.
khiyaaray waa soo dhameeyay hadda waxaan soo gashtay dabka grillkii aan ku dubi lahaa ama shayga aan ku sameyn lahaa haddii aadan kan oo kale haysana maqliga caadiga ayaa ku sameysanaysaa ka aniga maanta waxaan isticmaalayaa grillkana isticmaalaa haddii aad arki kartiin waa kaasaa alaabta diyaarka ahayd aan kuligood hal mar soo saarayaa waa kaasa korontada ayaan geliyay marka korontada gelisid cabaar ku kululaado baa tartiibtaada soo wada saaranaysaa intii markaas samaysay inta xabe uu ku qaado ayaad taqaanaa ayaan saaranaysaa haddaa rabtid dabool la-aan ku bislaan kartaa haddaa rabtidna waa dabooleysaa haddii aad daboolsid dhaqso ayuu kuu karinaa haddii aadan daboolina cabaar ayuu ku saarnaanaya hadba dhinaca u gedinay haddii aad daboolshidna dhaqsana wuu kuu karinayaa grillkani labada dhinacna hal mar ayay ku wada bislaanayaan wuxuu wataa baalka yarkaa wataa caaga yarkaa hoosta laga gelinayaa sidii mataqaana haddii dhaacaan iyo wax ka yimaadaan oona mataqaana dhulkaaga daadanin ayaa isagana loo hoos dhigaya qaar markaan soo bislay ayaan isku soo noqonayna insha allah maasha allah tabaaraka leylawdana siiya noo siyaad intii aan haysanin sii walaalahayga qaaliga maasha allah waa kaasaa chicken kabaabkii fududaa aadka u fududaa saana kusoo diyaariyey waa kaasaa labada dhinacba wuu ka bislaaday hadda waxaa waaye ready maasha allah aad iyo aad u fudud yahay aadna buu u macaan yahay maasha allah waa kaasaa maanta waxaan jeclaystay inaan idinla qaybsado chicken kabaabkan easiga oo aad gurigaaga ku samaysan kartid insha allah hadda waa soo diyaarinaya saanu diyaar iigu yahay dabkan waa ka damiyey waa kana maasha allah tabaarakallah saanaa kusoo diyaariyey salad ayaan hoosta soo dhigtay wax allaala wixii mataqaanaa markas aad jeclaatid oo mataqaanaa u diyaarsatay aad ku cuni kartaa waa kaasaa waxaan idinla qaybsanayay kabaabkaas fudud ee easiga aadkana u fudud aadna u macaan maasha allah walaalahay aad iyo aad umahadsantii walaalaha cusub ee igu soo biiray waxaan leeyahay kusoo dhawaada janalka surbiyaan waa idin soo dhaweynaya kuwii hore noola joogeen waxaan leenahay nala jooga weligiin oo hanaga tegina aad iyo aad umahadsantihiin daawashada mar walba aad daawateen janaalkeena anagana waxaan jecelnahay insha allah wax walba oo qurux badan inaan inii soo gelin haddii ilaahay yiraahdo anaga ilaahay subscribe-ka haddii taa markii kugu horeysay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu